waayahay waa war degdega oo saaki soo kordhay waxaa marka hore aan ka hadli doonaa hadduu ilaahay idmo qarax xoogan oo goordhow ka dhacay safaaradda Mareykanka ee Riyaad Sacuudiga iyo qaybo kale kamid ah ayada lagu magacaabo qaybta diblomaasiyiinta oo lagu soo dhaweysay wasiirada oo ka imaanaya Mareykanka, France, Ingiriiska. waa kiis aad u culus. Iiraan waxay tiri waxaan beegsanayaa safaaradihii tookada. sheekada way ka baxday waxaan ku dhahay ila dhaqaale iyo dhanka saldhigyada iyo sheekada way ka gudubtay tookada waxaan beegsanayaa tiri safaaradihii. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa kiis kale oo soo kordhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayadana qoraal degdeg ah soo saartay oo ugu baaqaysa muwaadiniinteeda waa dadka Mareykanka baasaboorka Mareykanka haysto inay isaga soo cararaan wadamadan sida Kuwait, Jordan, Bahrain, Imaaraat, Sacuudiga. sidoo kale waxay ku dartay tookadan ay ku soo dirtay Yemen iyo Masar. Mareykanka wuxuu taagay wax baa soo socda sidoo kale mudaharaad laba filaana oo Shiico ay ka bilowday wadamada sida Bahrain, Sacuudiga iyo Kuwait. Iiraan meeshaasi ma fursad dahabi ay ka heli doontaa ay isugu dirto Shiico iyo Sunna ay isugu dirto may ka heli doontaa waa laga yaabaa inay waxaan ku dhahay fursad dahabi ay isugu dirto ay ka hesho meesha maadaama ay Iiraan ay xulufo aysan lahayn ay tahay kaligeed. marka sidoo kale qaraxyada sidoo hore hadda waa ay ka duwan tahay waayo hadda waxay beegsanaysaa marka hore waxay beegsan jirtay ma hayno saldhigyadii iyo waxay beegsanaysaa ilihii dhaqaale beegsanaysaa hadda waxay beegsanaysay wasaaradihii safaaradihii ka dhigaysaa hadda waxay ku tuurtaa ku dhacay Imaaraat, Sacuudi Arabiya, Kuwait, Israa'iil, Bahrain wadamada soo dhan ay waxaan ku dhaxal kantaal ay ku wada turtay. marka Iiraan tookada go'aanay soo qaado waxay taagantahay waa la isku baabaa kaliya baabaa ay taagantahay. marka warkeena maanta halkaas uu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.